kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad noo daawanaysaan qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeenna aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono xiisad siyaasadeed oo ka taagan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo madaxweyne Lafta Gareen oo amar ku bixiyay in siyaasiyiinta mucaaradka ku ah laga saaro deegaanada maamulkiisa wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaan barnaamij wareedkeenna aan ku faahfaahin doonaa qodobada kale ee barnaamij wareedkeenna aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doono mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Turkiga oo ku dhacday deegaan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab maxaa xilligan ku soo beegay in diyaaraddu ay dhacdo waa kuma deegaanka ay diyaaraddaasi ay ku dhacday barnaamij wareedkeenna ayaan ku faaqidi doonaa maleeshiyaadka Al-Shabaabna mar qura wiil iyo aabihiis ayay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud iyo dagaal beeleed la siyaasadeeyay oo weli ka holcaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh ayaan barnaamij wareedkeenna aan ku faahfaahin doonaa balse haddii ay tahay markii kugu horreeyay ee aad soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa in aad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinnada iyo macluumaadka xiisaha leh ee halkan aan soo gelinno mahadsanidin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeenna wararka inaga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed waxaa maalmihii la soo dhaafay lagu xiray siyaasiyiin dhowr ah iyo mas'uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay Baydhabo kuwa oo mucaarad ku ah hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Shiine Macalin Nuur oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in la caburiyo siyaasiyiinta isla markaana ay dagaalami doonaan wixii ka dambeeya bisha soo aadan oo uu sheegay inay ku eg tahay mudxilheynta madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen intaasi kadib madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxuu laamaha kala duwan ee ammaanka uu ku amray in siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulkiisa laga saaro magaalada Baydhabo sidoo kale Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxuu fariin gaarsiiyay milkiilayaasha hoteelada ku yaala magaalada Baydhabo oo ay degan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna ugu digay in wax ka badan 24 saac ayna degnaan karin siyaasiyiinta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed hadda ka wada abaabul ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Baydhabo ayaa waxay hadda mar kale ay gashay guux iyo sidoo kale loolan siyaasadeed oo mucaaradka ka dhanka ah Cabdicasiis Lafta Gareen laga bilaabay magaaladaasi iyadoona maalmihii la soo dhaafay ay gaareen siyaasiyiin isku soo sharaxay xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaana amarkii u dambeeyay wuxuu ku bixiyay in laamaha amniga ay go'aan ay qaataan isla markaana deegaanada maamulkaasi oo ay ugu horreyso magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah Koonfur Galbeed in laga saaro dhammaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka ee shirarka iyo sidoo kale ololaha ka dhanka ah Cabdicasiis Lafta Gareen ka wada qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo xiisadan siyaasadeed ayaana waxay noqonaysaa mid soo cusboonaatay kadib markii inta ugu badan siyaasiyiinta Koonfur Galbeed mucaaradka ku ah maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ay ka wadeen kulamo kala duwan balse hadda ayay kulamadooda u weeciyeen dhinaca deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodob wareedka xiga ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno waxaa la ogaaday xogta ah mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Turkiga ay leedahay in dhowaan ay ku dhacday deegaan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab diyaaradan oo ka mid ahayd diyaaradaha ay dowladda Turkiga
ay qayb kaga ahayd howlgallada ka dhanka al-shabaab isla markaana duqaymo ka dhan ah al-shabaab ka fulinayay deegaanada dhaca gobollada dhexe ee dalka ayaa la sheegay in ay ku dhacday deegaanka la yidhaahdo ruumargood oo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay gacanta ku hayaan diyaaradda beerakhtaar la yidhaahdo oo ay dowladda turkiga ay samayso islamarkaana duulaan iyo duqaymo ka dhan ah al-shabaab ka waday deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa xogtu ay tilmaamaysaa in mid ka mid ah diyaaradaha ay leedahay dowladda turkiga ay ku dhacday deegaankaasi ruumargood iyadoona dagaalamayaasha al-shabaab ay la wareegeen diyaaraddaasi al-shabaab war rasmi ah kama soo saarin diyaaradda ay leedahay dowladda turkiga ee ku dhacday deegaanka ruumargood la yidhaahdo ee aadan yabaal u dhow iyadoona dagaalyahanada kooxda weli aysan ka hadlin wararka sheegaya in mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida casriga u samaysan ee dowladda turkiga ay leedahay in ay ku dhacday deegaan ay gacanta ay ku hayaan dad badan ayaa waxay isweydiinayaan maxaa xilligan ku soo beegay in diyaarad ay leedahay dowladda turkiga ay ku dhacdo deegaan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo qaar ka mida gobollada dhexe ee dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab waa falkii u horreeyey oo la soo wariyo oo ku aadan in diyaarad ay leedahay dowladda turkiga islamarkaana ah diyaarad hab casriya u samaysan oo ku dhacda deegaan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeenna ku jira haddii aan sii faahfaahinno dagaalamayaasha al-shabaab waxay sare u qaadeen beegsiga ay ku hayaan dadka dhaxalgal ku ah bulshada soomaaliyeed iyadoona saacadihii la soo dhaafay dabley hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay dilal goonigooniya ay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale deegaanka dhisiq shuruuf leh oo ka tirsan gobolka galgaduud haddii aan ku bilowno dilka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geysteen deegaanka la yidhaahdo dhisiq shuruuf leh oo ka tirsan gobolka galgaduud waxaa koox hubaysan oo ka tirsaneed al-shabaab ay halkaasi ay ku dileen shiikh caan ka ahaa deegaankaasi iyo sidoo kale wiil uu dhalay allaha u naxariistee shiikha ay dileen xubnaha hubaysan ee al-shabaab ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cismaan axmed geedi waxaana lala dilay wiilkiisa xilli ay dukanayeen salaada subax rag ku hubaysnaa biskoolad ayaana dilka shiikha geystay ayagoona goobta si degdeg ah isaga baxsaday kadib markii ay dileen shiikha iyo wiilkiisa sida ay inoo xaqiijiyeen dad ku sugan deegaanka dhisiq joofleh ee gobolka galgaduud lama oga cidda ka dambaysa dilka loo geystay sheekh cismaan axmed iyo wiilkiisa ha yeeshee warar soo baxay ayaa sheegaya in dilkaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab maadaama hore uu shiikha u soo noqday guddoomiyihii maxkamadda degmada cadaado ee gobolka galgaduud magaalada muqdishona kooxo biskoolado ku hubaysnaa islamarkaana ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa degmada dharkeeley ee gobolka banaadir waxay ku dileen sheekh cabdicasiis maxamed xirsi oo ahaa imaamka masaajidka dabaqiinka ee degmada dharkeeley iyadoona maleeshiyaadkii dilka u geystay imaamka ay goobta isaga carareen ciidamada ammaanka ayaana howlgal kooban ka sameeyey degmada dharkeeley ee lagu dilay sheekh cabdicasiis maxamed xirsi oo imaam ka ahaa masjidka dabaqiinka ee degmada dharkeeley iyadoona ciidamadu aysan u suuro gelin in gacanta ay ku soo dhigaan dableydii hubaysneed ee dilay shiikha al-shabaab ayaa tan iyo markii howlgallada ka dhanka ah dagaalyahanadooda islamarkaana deegaanno badan laga saaray ciidamadooda lugta waxay sare u qaadeen beegsiga ay ku hayaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhaxalgalka ah sida haweenka iyo sidoo kale culummada iyo sidoo kale nabadoonnada oo ay dilal qorshaysan oo ay soo maleegeen ay u geysanayaan guud ahaan saaxiibyaal waxaan halkan ku soo gebagabeynayaa barnaamij wareedkeenna intaa barnaamijkan kiisi xiga aan ku kulmi doonno nabadgelyo dhammaantiin